maalmihii u dambeeyay waxaan baraha bulshada ku arkay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka hadlayo in habraac loo sameeyay shirkadaha adeegyada bixiyo sida internetka, biyaha, isgaarsiinta iyo wixii la mid ah. Habraaca asaga waxa uu tilmaamayaa in shirkadaha adeegyada bixiyo marka ay rabaan inay ka gudbiyaan kiibaladooda ama fiilooyinkooda wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ee laamiyada la saaray qaabka ay u dhisi lahaayeen marka ay jaraan kadib. Waa arrin wanaagsan oo bogaadin mudan in wadooyinka magaalada Muqdisho markii shirkadaha ayaga ay jaraan in si wanaagsan loo dhiso, sababtoo halka ayada waxay weak point ka noqon kartaa wadada waxayna sababi kartaa burbur. Marka in si wanaagsan loo dhiso waa arrin wanaagsan. Bixiyo su'aasha aan rabay inaan ka jawaabo marka waxaa waaye shirkadaha adeegyada bixiyo mas'uul ma ka yihiin burburka wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan xilli roobaadka, ama ma loo aaneyn karaa burburka wadooyinka magaalada Muqdisho? Waxaan rabaa jawaabtaas inaan ku bilaabo maamaha Soomaaliyeed ee dhahayso quraan alif ka halaabay albaqra kama hagaago. Waxaan ka wadaa haddii mashruuca bilowgiisa hore ay wax ka khaldamaan natiijo wanaagsan kama soo baxdo. Waxaa muhiim ah in la wada fahmo in dhammaan mashaariicda mega projectska ama mashaariicda infrastructure-ka ama mashruuc kastoo dhismo inuu maro marxalado kala duwan loo yaqaano project life cycle ama project phases. Marxaladaha ay maraan mashaariicda gaar ahaan wadooyinka waxaa ugu horeeyo planning and engagement phase. Waxaan ka hadlayaa urban roads, yacni wadooyinka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, rural roads iyo urban roads. Wadooyin laga dhiso wadooyin isku xira magaalooyinka waaweyn iyo wadooyin laga dhiso magaalooyinka dhexdooda. Marka waxaan ka hadlayno waa mashaariicda magaalada dhexdeeda laga dhiso. Marka phaseska ama marxaladaha ay maraan mashaariicdaas waxaa kow ah in la sameeyo planning and engagement phase. Planning hay dambayso. Waxaan rabaa engagement phase inaan wax ka tilmaamo marka. 3 qoloba waa khasab in la casuumaa oo la aqoonsadaa, la tashadaa, heshiisana lala gaaraa. Group koowaad waxaa waaye community engagements. Dadka bulshada ee rayidka ee degan meesha laga dhisayo wadada waa khasab in lala fadhiistaa, lala tashadaa, maadaama mashruuca ama wadadu ay saameyn dhab ah ku yeelanayso noloshooda. Group labaad ay tahay in lala tashado oo engagement saxan la sameeyo waxaa weeye government authorities ama hay'adaha dawliga ah. Dawladdu waa inay ayada hogaamisaa mashruuca, waa inay shuruucda lagu dhisi lahaa ay dejisaa, waa in ay approve garaysaa oo waxaa weeye qorshe cad iyo oggolaansho rasmi ah laga helaa weeyaan. Groupka saddexaad waxaa loo yaqaano project stakeholders, waana halkaan u socda weeyaan. Project stakeholders waxaa laga wadaa saamileyda mashruuca. Marka project stakeholderska laba ayaa loo qaybiyaa, direct stakeholders iyo indirect stakeholders. Yacni saamiley mashruuca toos u saameynaysa iyo mashruuc si dadban u saameynayso. Saamileyda mashruuca sida toos ku saameynaysa kow waxaa ka mid ah funding agencies, yacni cidda bixinaysa fanka wadada lagu dhisayo cidda bixinayso. Waxaa ka mid ah client cidda mas'uulka ka ah wadada yacni matalaysa shacabkii sida tusaale gobolka Banaadir oo kale. Waxaa ka mid ah consultant team ama teamka design ka sameynayo hadhowna sameyn doono supervisionka. Waxaa ka mid ah contractorska oo shirkadaha ama kambaniyasha dhisaya ah. Teamkaas waxaa la yiraahdaa direct stakeholders. Marka shirkadaha adeegyada bixiyo waa kan halkaa u socda marka yacni shirkadaha adeegyada bixiyo waxay ka mid yihiin marka waxaa lagu daraa inay ka mid yihiin direct stakeholders, yacni saamileyda sida tooska u saameysa mashruuca. Waxay sababtay si toos u saameynayaan waxaa waaye waxay qayb ka leeyihiin wadada. Tusaale ahaan wadada Sodonka ee magaalada Muqdisho waa in waxaa khasab ah qayb ka mid ah wadada balaceeda tusaale ahaan 5 mitir oo kale in la siiyo shirkadaha adeegyada bixiyo. Way kala goynayaan oo isgoos kasta ama halka ay ku badan yihiin kiibaladooda waxaa khasab in waxaa looga sameeyo wax loo yaqaan service ducts. Inta lagu guda jiro marka stakeholder engagements waxaa khasab in la diyaariyo dokumentiyo ay ka mid yihiin stakeholder mapping report. Stakeholder mapping report-ka waxaa lagu ogaadaa ama lagu aqoonsadaa saamiley kasta iyo saameyntiisa uu ku leeyahay mashruuca. Waxaa kaloo ayadana la diyaariyaa waxa loo yaqaano stakeholder engagement plan. Marka haddii shaqadaas si saxan loo qaban lahaa ee dhammaan saamileyda mashruuca si saxan loo engage gareyn lahaa waxaa la ogaan lahaa shirkadaha adeegyada bixiya halka ay ka gooyaan wadada.
markii dhismaha uu socdayna waxaa lagu talageli lahaa in loo dhiso service ducts ama sleeve ducts waxa loo yaqaano, oo ah in dhismihii qayb ka mida la siiyo shirkadahaas laguna talagalo pipes shub ah si ay u cross galayaan wadada. markii la dhameeyo wadada kadibna looma baahnaadeen in dib loo jaro wadada. marka waxaan jawaabteeda kusoo koobayaa shirkadaha adeegyada bixiyo sida korontada, biyaha iyo internetka wax mas'uula kama ahan burburka wadooyinka magaalada Muqdisho. shirkadaha ayaga waxaa lagu qiimeyn karaa adeegyada ay bixiyaan iyo sida ay tayo ugu yeelaan. tusaale ahaan koronto ammaan ah, biyo nadiif ah, internet tayo leh, kuwaas way shaqooyinka laga rabo inay shirkadahaas lagala xisaabtamo. laakiin wax dowra kuma lahan wada burburtay oo markii horena aan laga talagelin. Assalaamu calaykum.